madaxweyne Mustafa Maxamed Cumarna wuxuu u magacaabay xil weyn oo uu ku sheegay inuu yahay ilaaliyaha 6 mashruuc ee waaweyn ee joogta meesha يعني مدحوينها ديانك ما أنت لقى بالله يا كبور وإحنا عاوزين شيء يتكبروا كبور يعني وين ورديها وين إلى ليها وين سوما يتكبروا مياله ما شو كشيء ها ضاف كوضة تقال ودي سنكرتها هو مقعب ورديها يعني شنتها مشروع عمل 6 مشروع وين أنا مدحوينه ديانك ورديانك الصوماليين ما أنتوا إثيوبيان نقضي مصطفى محمد عمرنا معها وكلية مدحوينها ديانك الصوماليين وإلاليها ورديها 6 مشروع وين وركسا كوغلا ديانك الصوماليين هذا مدحوينه ما مركب ورديها ها ما يكونوا عيدا وهايست بي بالليل هذا ماشي waxa nimanka miiska fadhiyo miiskii ay fadhiisteen deegaankii Soomaalida iyo dadkiisii iyo duniyada ay dhaxal wareejiyeen waa miiskii ugu khayrka daraa taariikhda ee la fadhiisto waa miiskii ugu barwaaqaysan miiskii ugu khayrka daraa way miiskan fadhiya miiskii hay'ad loo baleeyo iyaguna waa la mid waay waxaan in yaro alla u naxariistay oo Ilaahay iimaankooda sugay إلهي إيمان كوضا السوغي وإلهي سبحانه وتعالى محامكو إله ذايتو يعني ولي أنك قوسانين حريستي سو أنو أنكو جرمو يعني أنا أكو جرمي أقوى أكو بولي جرمي واي تو هذا قول جيجيتك بقى في مان لها جيجيتك جيجي لا ما الله يلا كبل عبطها جيجي إلا تي إيمان الله قبل عبطها واي جيجي وارول كاغا إلهي كوغي بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن كسو دوادا برنامجكنا دبكادا القodobkan كنا waxaynu ku eegi doonaa dhawaan ayay ahayd ama maalmo ka hor ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia uu booqday deegaanka Soomaalida isla markaasina la sheegay in uu ka dhagax dhigay mashaariic waaweyn ama warshado waaweyn sidoo kalena uu ceelka shidaalka ee degmada Shilaabo ee jeexdin uu ka xarig jaray warshad loo kala oo halkaasi laga dhamaystiray ama laga dhisay haddaba bal waxaynu eegi doonaa mashaariicdaasi gaar ahaan arrimaha shidaalka ayaynu si gooni ah isu dul taagi doonaa waxa ay la jooga saaxiibka jaamacada jaamcu abi uu yimid wadooyinka jigjiga xarigu ka jaray inkastoo aan maran sayidkiin oo soo arag meel la geeyay sayidkiin say laga qarniyay yaa noo soo celinay hadda la soo celinay insha Allah waayay goday buu si gudbay laba warshadood baa la sheegay inuu halka ka dhagax dhigay Shilaabo iyo xagaas uu dhooboyn buu si gudbay warshad kala la sheegay inuu xariga ka jaray soo dhaw arrimaha shidaalka iyo waxa socda maxaa kaaga baxay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya gudahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba wanaag badan oo rajeynaya waxa ka socda deegaanka Soomaalida yani maxaa kaaga baxay marka weyn socda maxaa kaaga baxay horumarkaas iyo barwaaqada waa ma sha Allah weydii ma sha Allah ay horumar ma soo dhaweynayna waxa la leeyahay wixii horumar iyo wanaag ummadan u soo kordha wixii wax kale ah ku hoos jirana waxa weeyday iyadana waa sheegaynaa bal waa yahay sheeka maxaa positive iyo negative marka la fiiriyo mashaariicdan iyo waxan maxaa ku marta wax maxaan ku yiraahdaa to positive iyo negative leeyahay oo laga hadlayaa hadda ma jiraan sideedaba maxaa jira waxa jira un xaqiiq iyo waaqac meesha yaala baa laga hadlayaa annaga hadda wax noo maaragtay positive oo aan maxaan ku yiraahdaa soo dhaweynayno ma jiraanba wax naga maxaan ku yiraahdaa to negative oo aan diidaynana ma jiraanba annaga hadda waxa weeye sida ay wax u dhacaan baan dhowraynaa mooyaane diidmo iyo ogolaansho midna ma haynaba sababtoo waxba la isma weydiininba markii wax lagu weydiiyo yaad ama wax ogolaataa ama wax diidaa Soomaa arag nimankii maxaan ku yiraahdaa deegaanka oo wada yaaban oo garbaha unsaa wada leh wada taagay oo dhowrayo indhaha un taagaya kaliya maya waxba la xarig jarayeen waxba ka yaabinba midka kale u dhowraya way yaaban yihiin warshado la xambaarsan yahay baa la keenay oo wada cilis ah meela kale laga soo furfuray waa yaabay laga soo furfuray ma aqaan laga soo furfuray taas wax weyn inoo Soomaaliya warshad meel kale laga soo furfuray yaabkaas marka anagu qayb ka nahay ummadii deegaanka Soomaalida way yaaban tahay balaayo baa lagu dul furay barqo barwaaqada barwaaqada xagee joogtaa warshadaha iyo meeshaas anaga bahalku waxaan barwaaqan bahalku halkiisa noogu jira muxuu noo qabanaya halkaas ku jiraya muxuu qabanaya oo maxaa ma oran ma naaxinaya marka
ما هذا إسناحية ما وأنا وحبه كمليه فيري أنا وحو يقول يهي أنت أهلك كتشرو أما أنا أنصو ساري وأنا أما أنا صو سارو أما أهلك كتشرو واحد حيا مر سيدا هذا بقى غيرك كهر وهبار أنا إن ما أنت محمد أرمو ما ويلسو ومحمد هذا أنت يهدان يهدان حق وحسن ومجعوني هبل بقى وحا ومجعوني الله مجعوني هبلنا وان عيرني ماشي ننا وان عيرني ننا حلب ومجعوني بكليه محي راس يا واي كواس تبوا أبي أحمد ماشي حلالك وكم مجعابة يدك وعيري ماذا المغرب مياه محي سيدا دبا إيه وماشي كذا واقعي رئيس الوزراء أبي أحمد علي والسلام يا هرت يا سلام يا سلام استجل نفتر كيس وماشي كذا واقعي يعني كدوات 8 سنة وعلشان شدالك يديجان كسومالي دو أي مرن كتيرين 8 سنة كدوات 36 سنة وعلشان شدالك يديجان كسومالي دو أي مرن كتيرين إني ما أنت مرن كبحين لما دي بيشة توماهن دراد دراد أي ديجان كسومالي دو نقضي إثيوبيا سأ ماشي كشيء. معناه ما هذا هو أوراني مساسس يجري. ما أنا أوراني يستقون ويجري. سؤال كذا. ديجان كسومالي دو ما أنت أيو إثيوبيا نقضي بيرو إثيوبيان نقضي بيرو. أنت هور أوردن ما هين. أفكسو كيجري. معناه هذا معيته. يعني تب ما أنت نعرف يسيه اللي وحن أقول لمن كرو. وأنا أقول دقائق كرين ما أنت كده حلي. أول هور أوردن وحيكون تاجناه فرع دلوت بيكون تاجناه. كل ببلايا كوكا عيسي ومحنقول مرحافظها جدك وقلي تشري مر شبهها جدك وقلي تشري باشن هاوي وحنقرنا يا مر أي بود شدا أي كوسو قاتين ملوك قلي ميلي ده محنقول هاي رمي شالي بس قدامي شالي بس قدامي شالي حقول يلا أبو ما كنت تقاني ميلها ما قاعدون ماسك ما غشت ما إيش قام بهذا ميل لا زولي غرزولي دحضة هاي لا زولي غرزولي ما تقانا وأنت هتيجي ترتمي هيدك ما أو هاوي فيري ماشي أصل الله قال ويل قال شروه قال لتشوق ومحمد با كولونيو أي بيبي هرس علان أركي كوريان بوسورك لا واحد بضد بكوس صاير لا واحد بعد ضعضك كشي بركد بهاش بودي ويل قال كله حقه كوريجي سجى أسكتي ويسحب بدي وسكتي دفاع بحدين عبارة كيشوين بميت كله قال شراء واسكت صعود قال بعديه الدونية يا ضرب أسوي أيوة waxay isleeyihiin waa kii qabta isna wuxuu isiri nimankan qoriga in ka qadan qoriga u socdaan wuu la fadhiistay meel shan buu isdul dhigay wuuna iska tagay waa ka tagay fiiri meeshan shidaalkan iyo waxaan waxa weeye awal hore Ethiopia ma qurqursanayn wiilka geel jiraha ee geela la joogay iyo gabadha ariga la joogta yaa cadawgooda koobadaha oo difaaca koobaad ee maaragtay furinta koobaad ku jira kuwaas ay ahaayeen kadib baa jabhadaha iyo beelaha iyo waxa loo gudbi jiray Soomaaliya garan jidka yarka ah maxaan ku yiraahdaa to aga inta markii jaaq dhowrka soo dhaafa meelayogaas hadii la doono waxa laga qoodi jiray in yaro chayga maaragtay unba yaro laga qoodi god ah gaar halkaas ku dhacaya saakana kaga meena tagin meesha wax badan baa joogay difaac badan baa jiray laakiin hadda dhamaan waxaad moodaa wixii difaac ahaa oo dhan in kan xididada u siibay macal geljiri قلتيري ولا وجهان قلتيري يقول بدن بالبنيان مقل هاي مال جوادي ما كبحday قلتيري وجهان يا ها هدول كيسو لما بنان قار مeel badan oo kamid ah la xaqay waagi hore intii joogeen jabhadu ya la xaqay wiilna geedo waa weyn kama soo bixin oo loogu dhunto marka muhiimadu waxay tahay waxa uu iska dhaadhiciyay isagu sida uu sheegay in labada bishii October deegaanka Soomaalidu uu noqday Ethiopia madaxweyne Mustafa Maxamed Umarna wuxuu u magacaabay xil weyn oo uu ku sheegay inuu yahay ilaaliyaha 6 mashruuc ee waaweyn ee joogta meesha yani madaxweynaha deegaanka maanta laga bilaabay kabuur wax noocaas uu sheegay ya takabaru kabuur yani u weyn waardiyaha u weyn ilaaliyaha u weyn Soomaa يتكبروا مياله يتكبروا ماشو كشيء ها ضاف كودا تقنا وديسن كرتا هو مغعابي ورديها يعني شنتها مشروع عمل 6 مشروع هو وين معناها هو مدحوينيه ديغانka wardiyeenka Soomaalidu maanta Ethiopia noqday buu Mustafa Maxamed Umarna ma aha oo kaliya madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee waa ilaaliyaha wardiyaha 6 mashruuc ee waaweyn warku saa ku galaa
deegaanka Soomaalidu hadda madaxweynaha markii wardiyaad baa isaga laba meeqo kun oo ciidan u haystaa 120 kun oo ciidan u haystaa cid haystay ma jirtay okay aan ka soo gudubno hatta ariyaha lagu raaci karaa ciidan ikaada hadda way aan ka soo gudubno mashaariicdan shacabka deegaanka Soomaalida ma danbay u yihiin mise dandara u yihiin shacabka deegaanka Soomaalidu maanta u dhaxal wareegay totally way jaamac Soomaali maanta ayay dhaxal wareegtay oo dhul wareegtay oo dhaqan wareegtay oo hatta diintoodii ay halis ku jirtaa inkastoo hadda Soomaalida meesha yaani ay iska noqotay diintoodii wax kala noqotay haddana awal hore wax uun cayma ah yaa dadku tabanayay waxaase suuragala weli dunida in rag ku nool yahay weli ma wada qoosanin kulli waxaan isleeyahay dunida weli rag un baa ku nool cid ma ka dhidhinan rag un baa ku nool baan isleeyahay anigu dunida weli saan isleeyahay laakiin dunida ka hadlayna deegaanka Soomaalida maya anigu dunidan ka hadlayaa dunida rag ku nool maxaa ka qosay dunida waxaa ku nool anigu waxaan ka hadlayaa tuuladanada Soomaha dunida weli rag baa ku nool saan isleeyahay marka rajadaasi waan qabaa laakiin Ethiopia iyo maamulka deegaanka Soomaalidu toodii iyagu way hirgeliyeen way aan ka soo gudubno laba qodob aan labadaba wax ka weydiiyo ninka la yiraahdo Abi Ahmed wuxuu sheegay in arrimahan shidaalkan iyo warshadan hadda laga xarig jiray Kaaluub iyo markii la dhisay iyo waxaas in la qarinay cadawga laga qarinay cid laga qarinay horta waa rabaa inaan wax ka weydiiyo gudoomiye Maadeyneesna wuxuu yiri hadal dambe uu dhamaaday labada arrimood soo aragtaa waa labada hadal horta waa isku mid haye cid laga qarinay horeen halkan aan ugu sheegay san jeclahay waxay ahayd onlif bay ahayd sababta onlif loola diray ee loo kala jabinay ee maalinba god loogu galay ee maalinba guri loogu weeraray ee habeenba maxaan ku ilig loogala baxay yani sabab kala ma ahayn iyaguna way ogaayeen onlifta oo wayna ka hadleen dad badan oo aan ogeyn yani siyaabo kale wax u arkayeen muhiimaddu waxay ahayd ceelashan shidaalka wixii laga qarinay iyaga ahayd codka kaliya ee hadli kara iyaga ahaayeen ee kara waxaan suuragal ma ah taageerada shacabkana haysta Soomaaliya Mustafa iyo kooxdan meesha joogtay BB baa la yiraahdaa waa meesha waxa nimanka miiska fadhiyo way miiskii ay fadhiisteen deegaankii Soomaalida iyo dadkiisii iyo duniyada way dhaxal wareejiyeen waa miiskii ugu khayrka daraa taariikhda ee la fadhiisto waa miiskii ugu barwaaqaysan miiskii ugu khayrka daraa way miiskan fadhiya miiskii xaga kale baa la isugu roogay waxa la aragay miiskii cagaha cirka u taagay Soomaaliya oo lafna waa la caydiyay waa la eriyay wixii laga qarsanayay iyagu ahaa Soomaaliya maadayna warka uu leeyahay hadal waa dhamaaday muxuu soo kordhin karaa noo sheeg wuxuu soo kordhin haba ma soo kordhin karo oka inuu iska hadlayo marka hadal uu dhamaaday ma hadal baa ku jira hadal kale ma jira hadal waa dhamaaday aamus inta ku aamusadna horay baa dadka u hoolaalay oo laf u hoolaashay oo haddana iyada iswada qabsatay oo iyadii iswada cuntay oo cadow la isaga dhigay laba qof oo isku qadiyad ahaa oo 30 sano soo wada dagaalamayay oo soo halgamayay oo dib iyo haydaarto iyo hoog iyo halaag soo soo baxay iyo 1000 riyaal isku dirta dadkaas dad qadiyad la 1000 riyaal wax ka wada 1000 shilin isku dirta dadkaas dad fiiri wala dheeno kaadiya waxa adeer ku caliye fiiri war qadiyada Soomaalidu waa 1000 shilin weey qofku Soomaali ba haduu yahay waa hunguri diin iyo iimaan iyo wax aan lacag ahayn male qofku ba haduu Soomaali yahay kii xamar joogo dad kolba u sujuudahay Soomaali Abi Ahmed u sujuudahay mooji ka hada ku jiray jamaya waa isku mid kan deegaanka Soomaalida dhaxal wareejiyay inay yirimiskan fadhina iyo kaasi waa isku mid kuwan oo laftuna waa isku mid iyaguna waa la mid waay waxaan in yaro alla u naxariistay oo Ilaahay iimaankooda sugay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaan ku ilaahday to yaani wali aan ka quusanin naxariistiisa anigu aan ku jiro mooyaan in kale ada ku jiro miyaa waa ku wili jiray waay to ma goor waa jijigatay qof iimaan la jijigatay la ma yada ka bilaabata jigjiga in la tagay iimaan la ka bilaabo
way jigjiga waa dhulkaaga ilaah ku geeyey way aan kasoo gudubna ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyadoo sida kale inaan tago iyadoo dhaxmaara joogin iyadoo ma sida kale inaan tago laakiin iyadoo saas ilaahay igu geeyey marka muhiimaddu waxay tahay maadayna wax hadda uu soo kordhin aniga iima muuqato hadal waa gam iyo hadal waa gum iyo hadal waa gow haddii la yidhaahdo adar gacal leeyahay feere soomaali baa tahay soomaalina anugu baan bartay aan reerkaaga iska joog haddii maxaan ku kuwa gudaha jooga deegaanka soomaalida ilaahay intuu rag ka dhigo oo ay rabbi isku xidhaan ay ficil sameeyaan oo ay maxaan ku idhahdaa ka dhiidhiyaan ragannimo haddii kale soo maaha adigu waxba soo kordhin maysid meeshaas ka jiro lifta sootiis ku soo sawiraysa ma darbiyada ogaada gaas ku qoraya intu kala tadreeyo bidci Ahmed Yaasiin soo onol mayn yaa ka onol sana maxay ahaayeen tisoo ku shalay isku sawiray xarig jarki kuwe ka gudu way jaamaco hadda xalku meeshu taagan yahay ikaad walaal toddobaad 54 soo Itoobiya deegaanka lagu wareejin dabayaqadiisi 54 ilaa up to now shidaal baan ilaashanaynaa waana ka baabaanay waliba waa lagu sumeeyo dadka deegaanka degan adiguna ka soo jeedo waqti in lagu sumeeyo warbahalkani haddaan la soo saarin meeshan ma aakhiro in la aadaya ma hal si noogu jiraya maxaa dhibo ku muxuu dhibo nagu haya hadduu meesha noo jacuuraado oo halka iska daboolaado mar un baan u dhici doonaa adar hadii la noo soo bixiyo aynu boqolkiiba hadaan aan shan ka helay hadaynu waxba ka weelimeynaba hadda niman baa la baxay annagana looma soo bixinin shanna kuma lihin waxna kuma lihin ama sida looga adkaaday noqonaysaa oo umad isdhiibtay oo iimaanka alla ka qaaday baa noqonaynaa oo maxaan ku idhahdaa halka iska joogta ama dunida weli in rag ku nool yahay baa laga yaabaayo waxun baa imaan doona wiil un baa laga yaabaa ilaahay inuu soo bixiyo marka in booyada la qarxiyo artamay waxa la sameeyay dhihi maayo laakiin dadkii dalka lahaa in rag ku jiraan rajaynaya aad baa mahadsantahay meeshan raggii lahaa intay noolaayeen way soo difaacdeen jiilba jiil buu u dhiibayay jiilka maanta joogana in rag ku jiraan rajaynaya aniga oromo haddaynu lahayn Itoobiya wadankiina waa haysataa oo waa ku dhegan tahay horumarra kama ogola horumarra kama ogola aynu lahayn oo haddii Oromo wax laga dhisay aynu lahayn deegaanka Soomaalida lagama ogola in wax la geeyo oo haddii maqala wax laga dhisay lahayn deegaanka Soomaalida wax la geeyo lagama ogola warshadihii ugu waaweyn Afrika haddii la inoo keeno maaragtay deegaankeeni laga dhisay maxaynu ku diideynaa maxaa balaayada ku dhaxarin ma ba rabnaba warshadan iyo side effect-geeda iyo balaayadeeda iyo maxaan ku idhahdaa to radio active-keeda yaacaya hawada lagu sii deynaya anaga geelana ka tagayna wax la qaybsan caadiid maya waxba la qaybsan mayno Itoobiya meesheeda ha joogto anaguna meesheedan joogeynaa riya ilaahay yaqaana fiiri aniga warshadahan maxaa la igu keenayaa warshadahan maxaa lagu keenayaa inaad ku horumarto deegaanka ku horumar maya oo gudi maanta boos la kala leeyahay fiiri radio active ma taqaanaa horta adiga maya noo sheeg shucaacan fiiri qarsoon ee ka dhasha qiiqa iyo maxaan ku idhahdaa tuhaahe baalka radio active baa leeyahay iyo maxaan ku idhahdaa bahalka shidaalka warshaduhu ay ku shaqeynayaan nuclear baa ku jira uranium baa ku jira radio active buu saa u sii deynayaa hawadaas oo dhan dad iyo dunyo wax noolaanaya male ha maxaa aniga la ila soo doonanayaa deegaanku ku jira meesha aniga geel baa ii daaqa geelaas ay daaqay adeer gacali shidaal ma raba maxaa ku faraya shidaalka weliga ma intifaacsanin wuu ku jiraa adeer fiiri arigaan maalaynaa idaha annagaan maalaynaa weligaa caano idaad ma cabti maya annaga idaha caanahoodan gadanaadi maxaanay la yidhahdo soo idaha hilibkooda la cunaa caano laga maale maya iska daayey wallaahi idaha caanahan iibinaa shidaaba lagu gadaa maxaan uga baahanahay shidaab idihii caanahoodii iyo lixihii caanahoodii oo waxaa la rabaa mataqaanaa in la iga dilo ma doonaya anigana inay iga dhintaan waxaan haddaanan anigu la soo baxayno laxda aanan iska dilay marka waxaad rabtaa maya nin kale inta soo saaro laxahayga ku dili maayo dee adeer gacali shidaalkana anaa leh laxahana anaa leh kolba mid baan intifaacsanayaa aniga waxba cid kale ii sheegi anigu waxaan diidayaa waxaan anaa iskale la igama sheekaynayo abi iyo qolyihiisana waxa way arkaynaa madaxweyne Mustafna waxaan leenahay taariikhdu waa dhaxal madaxweyne Mustaf maanta wuxuu arkaa inuu hero yahay ummadani waa sax kama xumi laakiin barbarkay ka baxdaa waa bakayl qeelan taariikhda ayaa nin walba qori doonta aniga
jaamac xasan baa la yidhaahdaa وارن isagana mustafa maxamed cumar baa la yidhaahdaa nin kaste taariikhda ayaa qori doonta deegaankana waan wada leenahay dhulka soomaaliyeedna waan wada leenahay nin kaste oo soomaaliya oo dhulkiisa dhaxal wareejiya taariikhda unbaa qori doonta cali caarif ma taqaani ناشد لو عارف عيونك يا كجذب دبات كوغان دونت علي عارف وهي ما صندر هدانو جاي سؤال ugu dambaysa ma taqaanaa maxmedani ha xalay qoraal buu soo qoray wuxuu leeyahay shidaalkan ha u malaynina biyi iska socday webi shabeelle maxaa laga dhasan karaa hadalkaas waa kale dunida rag baa ku nool inta saad ku gaabsanay ha dunida rag baa ku nool wali saan rajeynayo waka muhiimadu inta aad buu maasay saaxiibkay jaamac xasan cabdulle intaasaan kusoo gabagabaynaynaa qodobkan inta aynu falanqaynta xigta haddii rabbi qadar isugu imanayno barnaamijka dhabka hadal waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu